xasab magaciisa cilmiga ee tasdiidis waa xayawaan ka mid ah camaaratada wuxuuna dhiiggiisu u qabow yahay sida camaaratada kale waxaana loo qaybiyaa in ka badan 330 sida guud waxaa loo qaybiyaa qayb ku nool biyaha iyo weliba qayb ku nool bariga waxaana diinka badanaa la arkaa xilliga barwaaqada iyo weliba roobkii joogaanta jirto lamana arka xilliga jiiraalka wuxuuna u dhuun si uu ilaashado tabartiisa diinka waxaa laga helaa qaaradaha oo idin marka laga reebo qaarada Antarctica ama qudbiga waqooyi ee aadka u qabo diinku sidoo kale wuxuu aad ugu yaryahay jasiiradda Carabta diinkuna waa xayawaan qadiimi ah wuxuuna ka qadiimsan yahay xamaaratada kale sida maska iyo weliba yaxaaska waxaana la sheegay diinku inuu jiray 200 oo qarni ka hor wuxuuna diinku gaaray cimri ahaan 200 oo sano ama 2 qarni waxaana jirtay diin dhadig oo lagu magacaabayay Harit oo 2006 ku geeriyootay Australia ayadoo jirta 175 sano sidaan wada ognahay diinku wuxuu leeyahay qolof sare oo ku dahaaran gaashaanna ku ah iyo weliba qolof hoose wuxuuna ku qarsadaa xibnihiisa dibadda yaal waxaana la wada ogyahay in noocyada qaarkood aysan qarsan karin madaxa nuuca biyaha ku nool waa nuuc aad u dheereeya wuxuuna halkii saac jari karaa 22 mayl ama 30 kiiloomitir halka nuuca bariga ku nool uu yahay mid aad u gaabiya saacadiina jari kara 5 kiiloomitir nuuca ugu dheereeya waxaa lagu magacaabaa Leatherback sea turtle wuxuuna ka mid yahay noocyada ku nool biyaha diinku waxay u kulmaan sida xayawaanada kale gaar ahaan xilliga barwaaqada iyo weliba roobka jira waxayna dhigtaa midda dhadig 200 oo ukumood in ka badan dhadig ma dhigto ukumaha biyaha hoostooda waxayna dhigtaa bacaadka xeebta waxayna si toos u abaaraan biyaha markay dilaacaan nuuca ugu xajmiga weyn waxaa la yiraahdaa Galapagos oo laga helo jasiiradda Galapagos ee dalka Ecuador balse diinku ma laha wax dhaga ah sidoo kale ma laha wax ilka ah laakiin wuxuu leeyahay af mishaar la moodo iyo weliba carab inta badanna waa kuwa omnivore ama cuna hilibka iyo dhirtaba waxaana aadayaana looga ugaarsadaa meelo badan waxaana jira nuucyo badan oo inay dabar gaan ku dhow waxaana hilibkooda laga jecel yahay qaybo ka mid ah qaaradaha Aasiya iyo weliba dalka Hindiya booliiska dalka Hindiya waxay qabteen 6,000 oo diidin oo la doonayay in loo dhoofiyo dibadda waxaana qoloftiisa sare adag laga sameeyaa daawo dhaqameed budo laga saax daawo waxaana loo asteeyay 23 bisha May maalinka caalamiga ee diidinka si looga tikado dabargoontiisa loona xanaaneeyo